وقصة هيستا هرقيسة ديلين هيستن وحا عريه أبوان عبد آدم حاد وكما قاعدين عبد غيس دعنا قصة هيستن كتمي waxay ahayd sanadihii 1980kii waqtiga oo bandool lagu soo rogay magaalada Hargeysa oo afarta galabnimo marka ay gaadho ummadda Hargeysa ku noolad guryaha lagu wada xareeyo ayaa Cabdi Aadan Xaadwo Cabdi Qayse iyo fanaanadii Allah u naxariistay Saare Axmed Jaamac ayaa iska soo raacay xaafadda Dumburuq iyagoo ku socda xagga ay xaafadda shacabka intii ay sii lugeynayeen dariiqa hal qof oo shacab ah hindhoodu ma ay saarin oo meel walba waxa sida ciidda u daadsanaa askarta ciidamada dawladda oo goob walba taagnaa hase yeeshee xaaladda liidata iyo jawiga murugada leh ay magaalada Hargeysa ku jirta ayaa uu abwaanku intii ay jidka ku soo jireen waxa uu ka uriyay heestan Hargeysa ee dheeliin hadhantaal miwliga abwaanku wuxuu magaalada Hargeysa u hadlayaa sidii hooyo dhiiri gelisay ilma ay dhashay oo kale isagoo niyadda u dhisay calooshana u adkeynaya si uu u tuso quwadeeda iyo qiimaheeda waxa uu ku bilaabayaa ciideeda buuraheeda hawadeeda iyo biyaheedaba waxaanu yiri waxaad dhiig ku leedahay dhoobada Madiino dhuux iyo laftaada lagu dheehay khayro biyahaagu waa dheef duuniga sidii soo dabayshaada dhabata cudurrada dhilbaaxdo halkaas kagama u harine taariikhdii ay lahayd iyo sooyaalkeeda ayuu dhinaca kale ka tusay waxa uu sheegay in aanay sidan ay maanta tahay ahaan jirin waxaanu yiri daraartii gumaystuhu muska kaaga soo dhacay dhayalku ugu degin dheelaawihii iyo badda weyn dhexdeeda saan loogu dhiibo xeer la dhaabadeeyaa dhaxal looga reebo weli gaalkumuu dhalan dhudiye korkaaga iyadoo tagtadeedii daawanaysa ayuu haddana soo hordhigaya habdhaqanka dadkeeda gobta ah ee gacan furnaanta iyo nafqaybsiga leh ee kolba waxa ay haystaan wadaaga dhigto qoyska haystaa dhiilka maran ma moogo diintay ku dhaqantaa iyo dhigashadeedu cilmi dhaba Hargeysa leh hur oo dhiib Hargeysa leh intaas iyo in kale bay noogu sheeg heesta balse markii uu dhammaystiray ereyada heestan waxa isna laxan dareen taabad leh كلنا الله ونحرسته أحمد قايته يوسف إسلام كان واحد عد كده ديرن نقول له قيسي الله ونحرسته سارة أحمد جامع حرسي حدني